ilaabin abaalka waalidkayna soo galay waalidiintiina waxayna baray qorraxday ku ganacsadaan magaalada saarta u kala xiran ay hanti ay ka soo shaqeeyaan wax lagu baraan habeen iyo maalin farxadaada bisay ka taliyaan ha ilaawin waalidiintaada abaalkooda ha ilaawin maamulkaada macallimiintaada abaalkooda anaga inima ilaawino aadinkana waxa rajaynaynaa markaas waa madal ay ku dhan yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada dhammaan marti sharaftan ayaa u fadhida si dhiirigelin ay ugu sameeyaan in ka badan 600 oo arday oo dhameystay waxbarashada dugsiga sare oo ka qalin jabiyay dugsiyada Banaadir Zone kuwaas oo maanta halkan lagu xafladeynayo hadiyatan mahatiyo munad jarinayso Banaadir Zone hamogan cilmiga madalu wayane دفعة لعية طبعاً سكول مرايا ملقارية كوميتي دا قنت سوال لغا ممرمان madaxa waxbarashada dugsiyada Banaadir Zone Ustaad Cabdullaahi Maxamed Nuur Malaas oo ugu horreyn madasha ka hadlay ayaa sheegay in ardayda maanta qalin jabisay oo ah dufcaddii 16aad ay tusaale u yihiin horumarka dugsiyada Banaadir Zone runtii waxaan aad ugu faanaa waxyaabahan ugu faana ka mid ah maanta oo aan joogno dufcaddii 16aad macallimiintayni lagu aasaasay dugsiga Banaadir Zone waxaan aad uga mahad celinaynaa runtii inay maanta fadhiyaan ay joogaan ardaydii lafteeda ugu horreysay oo dugsiga ka qalin jabisa maanta ay fadhiga noola joogaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan uga mahad celinaynaa runtii dugsiga waxqabadkiisa waxaa ka mid ah inuu soo saaray runtii sida aad halkudhigyada iyo murtiyada aad ku maqlayseen runtii aad u tiro badan oo ka qayb ah qaybaha kala duwan ee bulshada indhaheeda ah waxaan maanta maraynaa runtii dugsiga lagu bilaabay 12 ilaa 17 qofood oo arday ah maanta waxaan maraynaa runtii aad u wanaagsan oo maraya xarumihii dugsiga oo ka koobnay ilaa runtii 9 xarun oo marayo shaqaalihii maanta laga yaabo dugsiga lagu aasaasay inay ahaayeen tiro kooban oo 10 iyo wax la mid ah maantana 151 qof oo shaqaalihii dugsiga oo ugu horeeyaan runtii maamulayaasha iyo ku-xigeenada maamulayaasha iyo dhammaan macallimiinta iyo dhammaan shaqaalaha dugsiga heerka ayuu marayaa runtii waxaan uga mahad celinaynaa rabbi tabaaraka wa tacaala uma waxaan uga mahad celinaynaa dadka lafdhabarka u ah oo ka mid yihiin macallimiinta iyo waalidiinta iyo dadka runtii dadaalka la qaaday oo la qabtay ka mid dhaliya oo maanta ay ka mid yihiin dufcada 16aad aqoon-yahano iyo madax ka socotay qaar ka mid ah jaamacadaha dalka oo madasha ka hadlay ayaa ardaydii ka qalin jabisay Banaadir Zone waxa ay kula dardaarmeen in waxbarashadooda ay sii wataan ilaahay lagu shukriyo subxaanahu oo shukrigiisa ha laga yaabo qiyamka dhaqanka Soomaalida hub iyo hu ha laga dhigto si fogna ha loo fakaro mar kale waa idin bogaadinayaa waxa dalalka kale ka dhacay caruuraha kale aan Soomaalida ahayn ay maanta ku jiraan fiiriya موبايلada idin la tagin daroogada iyo wasakhda magaalada yaacaysa ha gelina waalidka u baareen noqda dalkana u duceeyo ilaahay inuu jid iyo jiha u raali ka yahay oo noo bixiyo u duceeyo meesha umad ay ka hormartana waa tacliintii waxbarashada quraankeena aayadii ugu horeysay ee soo degtayna waxay ahayd iqra akhri marka in wax la akhristo waa horumarka marka runtii waa farxad naftiina anfacaysaan waalidkiina anfacaysaan waddankaad anfacaysaan ummadda islaamka guud ahaan ayaad anfacaysaan marka waxaan ilaahay hambalyo meel fiican aad soo gaarteen dugsiga markaad soo dhamaysateen haddana jaamacadaad gelaysaan dhammaan ubaxa maanta u soo baxay dalka waxaa soo tabantaabiyay waalidiin Dr. Cali Maxamed Xasan oo ku hadlayay afka waalidiinta ayaa u mahad celiyay maamulka iyo macallimiinta dugsiyada Banaadir Zone ugu dambeyn wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Dhiblaabi Washington oo ka mid ah aasaasayasha dugsiyada Banaadir Zone oo gabagabadii xafladda ka hadlay ayaa hambalyo u diray dhammaan qalinjabiyaasha sanadkan isagoo xusay in dugsiyada Banaadir Zone oo caruur u dhalay ay wax ka bartaan uu iminka ku sii talaabsanayo horumar waaweyn
aniga maanta waxaa qalin jabinaysa ikhlaas axmed dhiblaawe gabadhayda waxay dhalatay 16 sano jirtaa waxay dhalatay sanadkii dugsiga banaadir zoon la furay maanta ardada qalin jabinaysay ka mid tahay dufcada 16aad hambalyo dufcada 16aad hambalyo dufcada 16aad hambalyo aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh banaadirsoon oo ka mid ah dugsiyadii ugu horreeyay ee laga hirgeliyey magaalada caasimadda ah ee muqdisho xilli dalka uu ku jiray xaalad adag oo dhinaca ammaanka ah ayaa waxa uu soo saaray kumanaan arday kuwaasoo qaar badan oo ka mid ah ay bulshada ka dhex muuqdaan cabbaas xuseen muuse 5 TV muqdisho